asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kasoo dhawaada kanaalka Afifa Warsame. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago 7 hab oo aad ku horumarin karto kalsoonida naftaada. Waa hubaa 7dan hab haddaad ma aragto dabaqado, haddaad ma aragtay ku darto nolol maalmeedkaada aad ku darto in kalsoonida naftaadu ay horumari doonto, aaminaanta naftaadana ay ma aragtay sare u kici doonto, oo aad noqon doonto qof naftiisa ku kalsoon, naftiisa aaminsan, sidoo kale qof ma aragtay is rumaysan inaad noqon karto. Midda koowaad ayaa waxa ay tahay horta marka koowaad cabsiyahaaga inaad wajahdo. Cabsiyahaaga wajah markaan ku dhahayo yacni ma ahan inaad cabsi oo dhan aad iska saarto, sababtoo ah cabsidu ayadaa waxay leedahay 2 af ay leedahay, oo cabsidu marna way ku badbaadinaysaa, marna noloshay kaa reebaysaa. Mar walbana dareenkan cabsida yacni waxa uu isku dayaa inuu adiga ku ilaasho, ku dhowro isku daya, laakiin mar faa'iido ku leh marna faa'iido kuma laha. Tusaale ahaan haddaad ka cabsanayso inaad ma aragtay meel dheer aad iska soo tuurto kale, cabsidaas oo kale waa loo baahan yahay, adig ku badbaadinaysaa, faa'iiday kuu leedahay. Sidoo kale haddaad ka cabsanayso oo aad is leedahay ka fogaa wax naftaada dhaawacaya mise wax qalbigaaga dhaawacaya, cabsidaas oo kalena faa'iido ayay kuu leedahay. Laakiin marka waxyaabaha noloshaada ku saabsan, marka aad rabto inaad tilaabo hore u qaado, cabsiyaha kaa celinaya kuwaasi faa'iido kuma lahan. Cabsi kastana runtii waa la baraatikeey karaa, cabsi kasta runtii ma aragtay waa la dhex mari karaa, waana la arki karaa. Mararka qaar markaad cabsi wajahdo waxaad arkaysaa cabsidan waxaan aad ka cabsaysay inaysaba u xumayn sidii aad uga cabsaysay, sidaa ugu fikiraysaba inaysa u xumayn, oo cabsidaani ayba iska tahay waxaan laga cabsan. Tusaale ahaan markaad wadada jarayso oo kale, cabsi badanaa jirto inuu gaari kugu dhaco, inuu ma aragtay gaarigaas uuba ku maro, inaad dhaawacanto, inaad kufto, cabsiyaasoo badan way jirtaa. Laakiinse maalin kasta wadada waa marnaa, sababtaas waxaa keenayso waa baran. Anagoo yar aa wadada nala marsiiyey, cabsidii waa luminaba inuu gaari nagu dhacaa, inaan kufnaa, cabsidaasoo dhan way tagtay. Sidaas darteed wadada maalin kasta waa marayna anagoo cabsi la-aana, waxaan naqaanaa sida la iskaga badbaadso. Laakiinse markaan idhaahno dad hortooda aan ka hadalno, waxaa laga yaabaa inaan cabsi badan dareemno, sababtoo ah markaan yarayna lama barin, sababtoo ah inta badan dad hortooda kama hadalno, sababtoo ah ma naqaano dadku marka ay hadallo qaldanna dhahaan sida loo iskaga falcelsho, ma aragtay sida la iskaga difaaco, la iskaga badbaadsho ma naqaano. Laakiin waa naqaanaa wadada markaan marayna sida gaariyaasha la iskaga badbaadsho. Taas ayaa waxay caddeynaysaa in cabsidu ay tahay wax la baraatikeyn karo, wax la dhex mari karo. Haddaad tahay qof inuu dadka hortooda ka hadlo ka cabsado, haddaad tahay waa baraatikeyn kartaa, cabsidaasna waa arki kartaa. Laakiin waxa aad uga gudbi kartaa waxay tahay inaad inta badan waxaas aad samayso, aad noloshaada ku darto. Marka mar walbo aad rabto inaad kalsoonidaada kor u qaado, waa inaad cabsiyahaada aad ka hortagta, oo cabsida meesha kaa taagan ma aragta. Cabsidu inta badan kalsoonidaada weeqinaysaa, cabsidu inta badan dadka kala sawir xun ayay kaa siinaysaa. Inaad cabsiyahaas ka hortagto. Midda labaad ayaa waxay tahay inaad nafsadaada fiiro gaara aad u lahaato. Macnaha waxaan ka wadaa inaad fiiro gaara u lahaato dadka bini'aadanka ah, waxa wanaagsan iyo waxa xun inay arkaan, waxa u sahlan waxa xun inay arkaan. Tusaale ahaan maanta shirkada waxay keentay dhar ayay keentay, shirkadii dharkii waxaad maagto commentiga laga soo baxshay, bal akhriyaad maagto, waxaad arkaysaa hal qof oo ma aragtay wax negative ka baxsho oo dhahayo shirkadan kan waay dharka noocan waay. Waxaa laga yaabaa qofkaas warxumada wada inaa aaminto oo aad shirkadan ka tagto shirkad kale aado, yacni ma fiirinaysid boqolaalka mise kumanaanka kale oo commentiga wanaagsan soo baxsho, kaliya waxaa ishaada ku dhacaysa halka commenti oo qaabdarrada ah. Sidaas darteed dadku markay adiga ku fiirshaan waxaa laga yaabaa xumaataada bis inay arkaan, laakiin wanaagaaga, awoodahaaga, kartidaada inaysan arkin, oo ay dadku arkaan daciifnimadaada. Laakiin adiga waxaa la rabaa inaad fiiro gaara isku lahaato, inaad naftaada si fiican aad u fiiriso, oo aad ogaato meelaha aad ka awood badan tahay iyo meelaha aad ma aragta ka liidata aad kala ogaato. Sidoo kale markaad ogaatid meesha aad ka awood badan tahay, meelahaas aad ka awood badan tahay inaad diiradda saarto, inaad isku daydo inaad hormariso meesha aad ka awood badan tahay. Mar walbo aad naftaada fiiro u yeelato, waxaad iska soo saaraysaa waxyaabaha wanaagsan adiga kugu jiro, kartiyaha adiga kugu jiro oo dadka kale aysan lahayn. Taasina waxa ay kuu suurto gelinaysaa kartidaadaas inaad isticmaasho. Markaad kartidaada aragtana kalsoonidaada ayaa siyaadaysa. Sidaas darteed waa inaad naftaada fiiro gaara aad u lahaataa. Midda saddexaad oo aad samayn karta ayaa waxay tahay waxyaabaha daciifnimada ah oo dadka kugu dhaleeceen inaad u kala saarto waxaad wax ka bedeli karto iyo waxaadan wax ka bedeli karin. Tusaale ahaan dadka mar walba waxay kugu dhaleecayaan qaabka aa u agta, waxay ku dhahaan nin gaabanaa tahay, qof gaaban ma wax ka bedeli kartaa, may waxba kama bedeli kartid. oo dadku waxay ku dhahaan codkaaga qaab darro waay, codkaaga ma jecli, codkaaga miyaa wax ka bedeli kartaa, may waxba kama bedeli kar. laakiin waxyaabaha kale aad wax ka bedeli karto, sida hadduu qofku dhaho sidaana u dhaqantaa, sidaana u hadashaa, waxyaabahaas wax waad ka bedeli kartaa. Mar walba oo wax kaa qaldanaa aad bedesho, oo mar walba kalsoonidaada siyaado, mar walba wax dadka kugu dhaleecayaan aad u aragto inaad bedeli karin, oo mar walba kalsoonidaadu ay siyaado. Marka qodobkan wuxuu kaa caawinayaa inaad naftaada aqbasho, inaad
inaad naftaada ku aqbasho meelaha daciifka ka ah oo aadan bedeli karin, in sidoo kale aad hormariso meelaha daciifka ah oo aad bedeli karto. qodobka afraad oo maaragtay kaa saacidaya inaad naftaada kalsoonideeda aad hore u qaaddo ayaa waxay tahay inaad lahaato hadafyo yaryar oo la gaari karo. macnaha inteena badan waxaa laga yaabaa inaanan hadaf samaysan, inaanan isku dayin bishii inaan hadafkaas gaarno, laakiinse waad ku fikiraysaa hadaf aan samaysto sidoo kalsoonideeda u saramarina. okay, mar walba oo aad hadaf samaysato oo aad hadaf gaarto, hadafkaas waad samaysa soomaan, kalsoonidaada kor ayay u kacaysaa. sababtoo ah waxaad gaartay hadafaad gaartay, waxaad dareemaysaa inaad tahay qof hadaf gaari kara, qof wax samayn kara inaad tahay ayaad dareemaysaa. marka isku day inaad hadaf lahaato. tusaale, bishii intaasoo maaragtay saacadood inaad jimicsi sameeyo, jimicsigii waa samaysa. tusaale, inaan waxaas iyo waxaas aan iska bedelo waa hadaf, soo maahan? wixii waa bedesha. yacni marka aad aragto horumarada yaryar oo aad samaynayso, waxyaabaha yararka oo aad qaban karto, waxyaabaha aad gaari karto markaad aragto, taas waxay kor u qaadaysaa kalsoonidaada iyo sida naftaada aad u aragto. dadkuna markay arkaan waxaas aad samaynayso oo aad ka dhawaynayso horumaradaas aad samaynayso, ayaguna warxumo tashiilka ay ka aaminsanaayeen, fikirka qaldan ay ka aaminsanaayeen, ayaguna wuu lumaa. taasina kalsoonidaada ayay kor u qaadaysaa markay dadka ku aaminaan. sidoo kale qodobka kale oo shanaad oo maaragtay kor u qaadaya isku kalsoonaantaada ayaa waxa oy inaad dadka kala caawiso. inta badan waxaa laga yaabaa dadka isku kalsoonba inay dadka caawiyaan, oo dadka aan kalsoonida badan lahayn aysan dadka caawin, laakiinse caawimaada aad dadka u samaynaysa ayaa kalsooni kuu samaynaysa. sababtoo ah waxaa laga yaabaa qofku marka uusan isku kalsoonayn waxyaabaha uu dareemayo darteed inuu dadka kala dareemo ayaa laga yaabaa. yacni dadka aan isku kalsoonaanta haysan inta badan dadka kaloo isku kalsoonaanta haysan way dareemaan. haddaad aragto qof aan isku kalsoonayn, hadhihin ana xitaa iskuma kalsooni, hadhihin, laakiin waxaa isku daydaa qofkaas inaad moraalka u dhisto oo tirahdid kan samey. yacni adigu hamatalinba inaadan isku kalsoonayn, qofkaas isku day inaad caawiso, inaad warbixin fiican siiso, qofkaas meesha ay ku jirto inaad ka saarto. sidoo kale inaad si caadiya yacni dadka kale aad u caawiso, qofkii caawimaadkaaga baahan aad tiraahdo anaa kuu samaynayo, anaa waxaan kula yeelay. taas waxay kaa caawinaysaa yacni xirfadaada bulshanimo inay kor u qaado. waxaad noqonaysaa qof social skills leh, waxaad noqonaysaa qof dadka la macaamili kara, maaragtay dadka wax la meelay kara, dadka maaragtay wax la munaaqashayn kara. marka isku day inaad dadka caawiso. caawimaadaas aad dadka caawinaysa waxay ku siinaysaa relief yar ayay ku siinaysaa, waxaad dareemaysaa nafis yar ayay dareemaysaa. taasina waxa ay kaa saacidaysaa isku kalsoonaantaada iyo sawirka aad naftaada ka haysato inuu kor u qaado. midda lixaad oo aad isku kalsoonaantaada kor ugu qaadi karta ayaa waxay tahay jooji waxaan la yiraahdo isla barbardhiga. dadka kale ha isla barbardhiga. isla barbardhiga waa cudurka ugu xun oo qofka bini'aadanka ah ku dhici kara, gadaalna u reebi kara, kaasoo aan sahal looga soo kaba karin. aamin inaad tahay qof shaqsi ah, qof maaragtay keligiis wax samayn kara, qof wax ku wanaagsan, qof boos buuxi kara, qof maaragtay waxaad aamintaa door yeelan kara inaad tahay. yacni qof kale inaad isla barbar dhigto maba ahanba. qofkaas isku shaqo ma qabatiin, qofkaas maaragtay isku cilmi ma lehidiin, qofkaas maaragtay isku hanti ma haysatiin, isku nolol kuma nooladiin, isku bey-a kamaadna imaan, isku qoys kamaadna imaan. waxaa iskula barbar dhigto ayaaba qalad ah. marka mar walba aamin inaad adigu door ka soo bixi karto, marka mar walba aamin inaad adigu boos gooniya leedahay, qofkaasina uusan waxba ka qaban karin. marka mar walba waxaad isku daydaa inaad adigu naftaada aad la barbar dhigto siday shalay ahayd iyo siday maanta ahayd. naftaada bis isla barbar dhig. sababtoo ah shalay sida ahayd iyo maanta sida ahayd waa kala duwanta. markaad aragto marka shalay sida ahayd inaad ka wanaagsanta, isku day inaad tilaabo hore u qaado. laakiinse weligaa qof kale naftaada ha la barbar dhigin. laba mid ay noqonaysaa. haddaad qof la barbar dhigto naftaada, inaad qofkaas liidnimo aad u aragto, iyo inaad istiraado qofkaas wuu kaa fiican, labaduna meel xun ayay ku geenaa. haddaad qof inta isla barbar u aragto inuu kaa liito, taas waxay kaa saaraysaa bili-aadanimada ayay kaa saaraysaa, mase waxay kaa saaraysaa iimaanka yarka oo ilaahay ku siiy, mase waxay kaa saaraysaa ababa ku ilowsiinaysaa inaad ilaahay u xamdiso. haddaad sidoo kale qof inta isla barbar dhigto aragto inay kaa wanaagsantaan, waxaad noqonaysaa qof daciif ayaad arkaysa, naftaada ayaad daleelaysa, hoosa isku fiiraysa. marka mar walba inaad qof isla barbar dhigto, hadduu qofkaasi kaa hoosay iyo hadduu kaa sarreey, midnaba ma haboono. qodobka ugu dambeeya oo ma aragta isku kalsoonidaada aad kor ugu qaadi karto ayaa waxay tahay inaad horta u muuqato qof isku kalsoon. sababtoo markaad hadda maanta aad rabto inaad qof la kulanto, qofkaasu fiiri maayo, gudahaaga fiiri maayo, waxaad ka fikiraysa fiiri maayo, qalbigaaga wanaagiisa fiiri maayo, laakiin wuxuu fiiraa qaabka aa u muuqato, dharka aad xiran tahay, qaabka aad u taagan tahay. haddaad dharka aad xiran tahay yacni kama wado dhar cusub, kama wado yacni dhar shirkad gooniya soo saarta, waxaasoo kale kama wado. yacni dharkaagu hadday yihiin qaab ma aragta la qaadan karo, oo qaab ma aragtay qof juhdi isgeliyay aad u eg tahay, iyo sidoo kale haddaad qaabka aad u taagantahay u yahay qaab
caadiga qof ma aragto isku kalsoon qof karti laga dareemayo dadku inta bini'aadanka waxay ku qiimeeyaan dadka kala qaabka ay u egyihiin sida aa u taagantahay iyo sida aa u fadhiso haddaa inta soo qabatid madaxa inta gacmaha saaratid saas adiga dhanaata hoos aa iska fiiriso waxaa laga yaabaa inuu qof kasto iska kaa agmaro laakiinse haddana saas u fiiristo caraasas maanta dhan u fiiriso waxaa laga yaabaa qof inuu iskaga kaa ago adabo marka taas waxaan u dhahaa waxay tahay yacni qaabka aa u muuqato waxa uu kaa caawinaya yacni dadku inay ku arkaan qof isku kalsoon qof karti leh inay dadka ku arkaan qof waxa arka iska kaa dhahaysa iyadoo ku aqoon oo adi qof karti leh hata maba ku taqaanaba sababtoo ay kuu tahay waxaa laga yaabaa muuqaalkaaga bis ay qiimaysa qaabkaa u taagantahay qiimaysa marka bal mar walba adoo isku day qof isku kalsoon qof dharka uu xiran yahay ku kalsoon nooc uu rababa ha noqdo qof qaabka uu u taagan yahay ay kalsooni ka muuqato yacni ay ka muuqato yacni dhiiranaan iyo indhafurnaan ay ka muuqato yacni mar walba inay noqoto marka toddobadaas qodob aan raba maanta inaan la wadaago waan hubaa haddaad samaysin toddobadaas inaydan caawi doonto isku kalsoonaantiinan ay kor u siyaadi doonto aan isku kalsoonaana dhammaanteena oo ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan si uu asxaabtaada usii gaaro sii shaar garay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu